بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkani waa channelka Aftahan Production meel walba aad joogtaan waqtigu ay idin wacnaado waxliyadaynu ku ballansanaynayno hawada dib ugu kulanno daawadayaal meel walba aad joogtaan waxdigala jaan qaadi kartaan channelka YouTube-ka Aftahan Production mar walba isku day inaad subscribe saarto kambalka aad furato si aad akhbaaradkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo Somaliland aad kala socoto halkan mar walba waxaanu soo gudbinaa xog xasaasi ah وانا شنطة بيشة 8 أكتوبر 2019 qodobada xilligan aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah wafdi xildhibaano iyo siyaasiyiin isugu jira oo goordhow ka degay magaalada Kismaayo iyagoo ka duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya maxay tahay ujeedka safarka yaa kamid ah wafdigii Kismaayo ka degay diyaaradda qaaday amarkaasi dawladda Soomaaliya miyuu ka socdaa miyaa la ogolaaday base waa mid lagu jabinayo dawladda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wararkii ugu dambeeyay Kismaayo wafdiga ka degay ayaan warbixin kooban idinkaga hayaa iyo guud ahaanba siyaasadda dalka u diyaar garooba barnaamijkii dabagalka wararka magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan ku soo dhawaada channelka Aftahan Production iyo programka xilligan diyaaradda ay saaran yihiin mas'uuliyiin uu kamid yahay madaxweynihii hore ee Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo waliba madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Sakiin iyo xildhibaano sodomeeye ah ayaa ka degay magaalada Kismaayo iyagoo ka duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya diyaaradii qaaday ayaa la sheegay inay tahay diyaarad ay leeyihiin maamulka Jubbaland isla markaana ay go'aansadeen shacabka iyo ganacsatada guud ee Jubbaland inay qidmo iska ururiyaan si ay u sameystaan diyaarad u qaasa oo muujinaysa inay ku qoran tahay astaanta calanka jamhuuriyadda Jubbaland ama astaan Jubbaland oo muhiimadeedu ay tahay in maamul goboleedku uu mararka qaarkood jamhuuriyad noqon karayo haday dhibaato uga timaado dawladii uu hoostagayay waxaan ula jeedka astaanta aan jamhuuriyad u isticmaalayo aan kala jeedaa mar hadii dawladdu inqaab gaar ah oo aan waafaqsanayn sharci nidaam iyo mid federaalba ay kula kacday Jubbaland dantu waxay kaliftay Jubbaland inay iskeed go'aan u qaadato waana calaamad runtii Soomaalida aynan ku farxaynin laakiin sababtaasi ay lahan karto in dawladnimadu ay noqoto xafiis qof uu leeyahay go'aan uu ka qaato go'aankaasna wuxuu dhaawici karaa jiritaanka Soomaalinimo iyo ogaashaha guud ee dadnimada dhabta ah waxaan ula jeedaa Jubbaland markii la yiri diyaarad uma duuri karto diyaaradna kama digi karto amarkaasna laga soo rogay xafiis kamid ah xafiisyada dawladda federaalka Soomaaliya oo aan la marsiin nidaam sharci ah dantu waxay kaliftay in Jubbaland ay samaysato diyaaraddaasna ay ka duuri karto magaalooyinka Garowe qayb kamid ah dhulka deegaanada aanan hoostagin Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay suurtagal tahay dadka qaarkood inay isweydiinayaan sababta keenta dhul deegaan Soomaaliya kamid ah inay diyaarad ka duusho iyadoo ay dawladdii tiri hawada Soomaaliya maamulaa ay wali raalli ka ahayd marka micniyan aad ay u qoto dheer tahay laakiin wafdigan dhameystiraya wafdigan wuxuu hore dhac u yahay wafuud ka qayb gali doonta cali masaarka Axmed Madoobe oo lagu waday bishii hore inay dhacdo laakiin loo wareejiyay ama dib loo dhigay sabab la xiriirta dawladda oo go'aano adag oo aan waafaqsanayn nidaam sharci ah oo dawladnimo kula kacday wafdi ka tagay Muqdisho ala kulli xaal على مسار كسر رعويه هاي وأنا مدحوني يجوه الرئي أما لبدي مسؤول مع القبلات يجوه الرئي كل هذا إنه يستعملان ديارات خاصة يجو أنا هوست جينين دولة في الورديج لي شفت قالوا حقه إن جو أنا أدق أو كلا وكسب الدولة ده ما دام أي مركي هرب هورست تكتب مدحوني الشيخ شريف شيخ أحمد لكن تري وحي إنه تصار عد أي أطهي فرتان كسياسة الربط أي وعي جماعة تجرا وأنا جوهم بلينا يا maamulka Jubbaland diyaaradaasi qaaska ay sameysteen waxaan leeyahay inay ka duusho Nairobi anigu ma jeclaysan laakiin waxa kalifay dawladda federaalka in Nairobi ay diyaarad ka duusho Muqdisho ay ka cararto ilma adeerayaal ma kalifin baahi uu Axmed Madoobe qabee waa qaladka dawladda federaalka Soomaaliya haddii dawladii caasimadda diiday xanixin Nairobi inay ka duusho hadiidin maxay la dawladii baa Muqdisho isla haysiisay oo waliba u diidan qabiilada qaarkood sida darteed baa dantu kalifaysa inay Nairobi ka duusho marka yaanan culays loo arag yaanan loo arkin inay tahay qalad anigu waliba xaqiijinay inaan anigu jeclayn inay Nairobi ka duusho laakiin Muqdisho maadaama la isla heshiiyay damba kaliftay inay Nairobi ka duusho marka على مسار كنا قرروا أي شاعد دونا برنامج ذي كان كحجة بل سو حنج على لها إن لبا أرندتك وجتيميو أحمد مدوب مركو يحيي معمول كجر الجمهورية دا الصومالية قانون كدلك وجبيو وحواجب نقول أنا قلنا إن كهرستاجنو أو أن هرستاجنو عن نحن أحمد مدوب وخلديه لكن قان شخص أوليه أما الدن أوليه هي مد كمية مسؤولين الدولة كم علادين كرنو أحمد مدوب قف بلي آذن وكل علادين كرنا الله معركيه أحمد تستور كي دلك أيو دمية نظام كي دولة نمو كسو هرجدا والدولار راعي له لكن أنا جنا أدس أبا أبا حنكو بيريا
axmed madoobana waxaan ku caayayaa waa nin kenyaan oo dalka cadow gacanta u gelinaya aniguna qalbi dhagaxan Ethiopia u dhiibay anigu Ethiopia waa walaalahay shalana Kenya walaala ahayn maantana Ethiopia sida darteed anigu waxaan ahay nin saxan Addis Ababa laga xukumaa axmed madoobana waa nin qaldan Nairobi laga xukumaa dana mustaqbal dal maaha ee waa dana gaara marka sida darteed dambiga uu axmed madoobe leeyahay waxay noqonaysaa inaanu markaa barbar dhigno dambiga uu leeyahay madaxda qaranka marka inaad aad u fahantaan muhiima marka sida la ajligeed balayno inta qaybta axmed madoobe uga gudubno ufuuda way badnaa doonaan magaalooyin dhowr ay ka soo tagi doonaan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aadan u culus tahay wararkaas waxa dhici karta inay warqado dambe ay soo baxaan maadaama xilli galaba kula hadlayo oo dawladdu ay go'aan kala qaadato waxa laga yaabaa inay dawladdu go'aankeedu halka uu ku burburo oo wafuudu ay sida isaga daba dhacaan wixii ku soo kordha barnaamijyada soo socda ayaad kula socon doontaan hadduu alla idmo balse shacabka Jubbaland waxaan leeyahay inaad isku tashataan dan baa keentay dhaawiciinii ayaa la diiday inaad isku tashataan dan baa keentay dadkii nin xanuunsanaa baa la diiday diyaaradii qaadi lahayd anigu idima hayo wax qalada inaad diyaarad samaysataan maadaama caasimadii laydinku cashuurayo dowladnimadii ay noqotay in aeroboortka qabiiladiina laydin weydiiyo inaad diyaarad samaysataan maxaa diidaya anigu waan ogahay nin ogaadeen ah oo farmaajo u shaqeeya ayaa aeroboortka Muqdisho jooga diyaaradda Kismaayo u socota isaga baara ilaahay baan idinku dhaariyay Soomaaliya aeroboortka Muqdisho ila fiiriya waxa baaran nin ogaadeena oo farmaajo ka amar qaata waxa lagu yiri qabiilka ama lafta oo Axmed Madoobe ka yahay waa la xiraya qofkii Axmed Madoobe taageersan waa la xiraya ma aha marka baaritaan abni ma aha ee waa baaritaan bartilmaameed weeyaan marka hadduuba saxan yahay nin aeroboortkii Muqdisho qabiil ku baaraya maxaa diiday inaan u hambaleyno marka shacabka isku tashto diyaarad samaystay hooyo go'an ayaan habeen dhawadeynayay aan akhbaarteed akhrinayo lugteedii baa burburtay dawladda farmaajo diiday in isbitaal loo qaado marka sida darteed ma waxaad aniga iga dhaadhicinaysaa inuu Axmed Madoobe ku qalday inuu diyaarad samaysto haddii la dhinto wadaniyaa leeyahay haddii la isbadbaadiyana wadaninimadu waa dhamaatay warbaahinadaydu iftiimiyahaygu barnaamijyadaydu arrintaas oo dhan way ka soo horjeedaan insha Allah waxay ku soo kordhaa xaaladda cala masaarka iyo taariikhda rasmiga ah caawan idin soo sheegaya barnaamijkayga 12 haduu alla idmo xilligaasaan dadka u sheegi doonaa taariikhda rasmiga ah ee cala masaarka insha Allah guul iyo hambaliyo ayaan leeyahay shacabka Jubbaland insha Allah magaalooyinka hoostaga Jubbaland way xoroobi doonaan haduu alla idmo waxay ku soo kordhaa barnaamijyadii soo socda waxa iga xasuusa in dhawaan aan bilaabi doono barnaamij la yiraahdo iyaad u dooran lahayd madaxweynaha dalka siyaasadeed jeclaan lahayd madaxweynaha maxaad astaanood ku aqbali lahayd qof kastana waxaan ka ururin doonaa codad hadda waxaan ayaa boqolaal cod oo astaanta dadka ay ku muujinayaan marka haddaad doonayso inaad fikirkaada dhiibato waxyaabaha aad jeclaan lahayd inuu noqdo madaxweynaha soo socda fadlan aragtidaada waa xor xalay waxaa jiray akhbaar kale oo ku salaysnayd in page uu ku qoran yahay Sanbalulshe taliyihii nabad sugidda lagu soo qoray weerar lagu qaaday guriga Xasan Sheekh Maxamuud mar kale ku celinaya beejkaas waa mala awaal waxba kama jiraan hadduu alla idmara waxaan u samayn doonaa barnaamijyo gaara wax la weeraray oo xaray ciidamo ay guriga Xasan Sheekh ku xadgudbeen ma jiro ciidanka waardiyeeya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekhna dawladda Soomaaliya ma hoostagaan quwadda labada ciidanna kuwa loo babac dhigi kara maaha howlgallo dawladdu ay ku bartilmaameedsan kartana Muqdisho kama muuqato yaana dadka la maran habaabin taageerayaasha Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekhna waxaan leeyahay iska daa in weerar ciidan u dhacay mudaharaad hata ma ka dhici karo guryaha ay degan yihiin Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh sidaas la socda insha Allah waa qayb loogu talagalay dadka in lagu dhiyo jabiyo wanaaga Kismaayo aan jeclahay wanaaga Baydhabo aan jeclahay wanaaga Muqdisho aan jeclahay wanaaga Galmudug aan jeclahay wanaaga Puntland baan jeclahay wanaaga Hirshabelle aan jeclahay shanta Soomaaliya waa imid laakiin waxaan ka soo horjeedaa waxa weeyaan nidaam ah adigu waxa tahay tug ana wadaniya shalay nin mucaarad ahaa ayaa maanta muxaafad wuxuu ku leeyahay shalay wadani ma ahayn maanta wadani ah marka sida darteed waxba yaa lagu leedin niyo jabin shacabka Kismaayo cid idinka wadanisan ma jiro ana ku cadeynaya halkan haddii la yiraahdo ciidamo Kenyana idin jooga farmaajo Ethiopiana wartiyay haddii la yiraahdo Kenyana madaxweynaha Jubbaland Kenyan buu hoostaga madaxweynaha qaranka fiyoor ku beeraya Addis Ababa marka walaalayaal yaa waxba la idin tuurin madaxweynaha qaranka fiyoor Addis Ababa ku beeraa marka bal qofkii idin caaya idinkuna u jawaab oo dhaha war madaxweynaha qaranka ubax ku beeraya Addis Ababa nin dhalinyaro ah oo si weyn loo yaqaano ayaan hadda kor waxaan weydiiyay farmaajo ubax ku beeraya Addis Ababa asoo Addis Ababa horma hay Addis Ababa way gadoontaa waxaan ku leeyahay taa soo isku moogeen waagi Xasan Sheekh inay cadow ahayd ma yadii hadda Addis Ababa ma aha micnaha marka waxaan weydiiyay sabab wuxuu ii cadeeyay Addis Ababa markuu farmaajo madaxweyne yahay inay tahay walaalahayn
markuusan farmaajo madaxweyne ahayna inaysan ahayn walaalahayn kismaayo waxba yaa laydinku madadaalin arrinku waa iska cad yahay barnaamijyo dhowrana waan ka diyaarin doonaa